madaxweynayaasha maamul goboleedyada galmudug iyo hirshabeelle madaxweynayaashii hore xildhibaanada labada gole wasiirada madaxda kale ee meesha fadhida agaasimayaasha iyo howlwadeennada xafiiska bare ministerka iyo dhammaan warbaahinta dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu runtii maanta maalin weyn waaye ummadda Soomaaliyeed maalin weyn bay u tahay aad iyo aad aan ugu faraxsannahay waxa meeshan ka soo baxay waana bogaadinaynaa heshiiskan iyo isafgaradkan saacadaha dheer qaatay laakiin natiijada wanaagsan ay ka soo baxday waana mirihii iyo baaqii uu soo jeediyey ra'iisul wasaaraha Soomaaliya jimcihii la soo dhaafay oo baaq nabadeed ku baaqay ayay tani miraheedii tahay qodobka labaad dawladdu markii ay go'aan gaaraysa waxay ku saleysay daraasad iyo qiimeyn mar walbana waxay diyaar u ahayd markii haddii dib loo qiimeeyo dibna loo daraaseeyo oo wada hadal iyo hawl cusub soo baxdo inay u hoggaansanto wixii ka soo baxay heshiiskaas sidaas darteed wada hadalkan iyo qiimeyntan dib loogu noqday wixii ka soo baxay wasaaradda amnigu anu mas'uulka ah waxay diyaar u tahay in ay fuliso arrintaas sida aan ognahay amnigu qof walba waa ka weyn yahay shacabka Soomaaliyeed iskale dhib badan baa loo soo maray inta meeshan fadhida oo madaxda ah iyo in kale la shaqeynaysay ee dhimatay ama nool ayaa waqti badan soo geliyay waxa cid walba oo Soomaaliyeed oo nacfigeeda iyo wanaageeda u haysta amnigu sidaas darteed wax laga tanaasuli kara ma aha cid walba ama ha naqato dhinaca dawladda ama dhinaca kale ha naqatani aragtideeda u arkaysa sida ay la tahay in amniga lagu sugo laakiin waxaan ka midaysanahay dhammaanteen in amnigeenu uu naga weyn yahay muxaafid iyo mucaaradna uusan lahayn ee uu yahay maalka iyo dhaqaalaha ay ummadda Soomaaliyeed leedahay cid walba inay ilaalisana loo baahan yahay sidaas darteed horena waa ugu celcelinay haddana waa ku celcelinaynaa waxaan diyaar u nahay in wax alla wixii heshiis ah iyo wax alla wixii isafgarasho ah iyo qiimeyn inaan fulino wasaaraddu saasay diyaar u tahay aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh